لبغات صدقات مدينة لبغات وشوك كرسي ما أنت نقال باله عيسى نوح بانا له مساجد عيارتها لقداي مساجد عيارتها لقداي كو وعن يقوله هداك يقول يستو ديمقراطية هالكذا ما كسر وضيسا هابوي العقد مسوع لنيسا هابوي قوقبان كجرنا أنت أسوق الوير بان كجرنا ما نقف في ذنيسا ما نقص عليسا هابوي لا ميجا مكدا دجنيسا ذو ما لها بور كوين قبل لا تجرا إلى الله فقر أيو إلى السناك إلى حقك مو دا دجنيسا هابوي ورحمة الله وبركاته وهو هدنا الله يسحبين هبنا لو سيدن لو هباينين maxaa hoobaan loo hormarayo horay loo yiri ninkii geela ku heesay baa yiri anigu hadda diraca ka weyn caawa kadib waa tuurayaa suud baan soo xiranayaa iyo niigtay sababtu waxay tahay waxa la nin aabihii geel lahaan nin dameerartay in aabihii geel lahaan jeelambad anigu jalan baanay qalyaraha aad arkayso isku kuliyad baanay isyaanadan anaa kale meesha waxaan ugu gabanayaa oday dhaqameedada ii geeyay goortii jagooyinka iga buuxsadeen ciidamada aan meel ka waayay baan madaxa ku sii qarinaya laakiin haddii dawlad fiican dhalato guuleed iyo inta la mid ay hoggaanka u qabtaan sareeyo gaas baan la bisnaa haddii alla idmo waxaan kaloo leeyahay habeen dhaweyd hadal dadna ka farxiyey dadna ka nixiyey baan gole ka sheegay wuxuu ahaa waxaan idhi anigu waa arag baanahay dawladdii aadan caddaan joogay cabdirashiid baan joogay maxamed siyaad barraan joogay ergadii puntland baana ciidamada puntland baan dhisay anugu waxaan leeyahay marka saddex dhardhaar oo aynu maalin kala degnay waa lama beddelaan ilaa aynu dawlad sare oo mustaqallaa u gudbayno saddexda ilmo maxamuud saleebaan kursiga ilaa dawlad sare la gaarayo iyagaa haynaya sababtuna waxay tahay wuxuu waa maamul goboleed dhooba ah haddaynu ku qabsanno iyagaa burburinayo oo ku galgalanayo sidaa darteed haddaan waxaan ku darayaa waxaa la yidhi labaqaate saddex qaate ma jira labaqaatow joog kursiga maanta nugaal baa leh ciise dhuux baana leh masaajidka cayaartaa laga daayo masaajidka cayaartaa laga daayo walyahaga iyaga kale oo sharaxan waxa iyagu waa ku qabso ku qadimaysida waxaanu rabnaa in loo badiyo wasiirada eeda dhiijiyada iyo ilaha dhaqaalaha walyaha iyaga kale haddaan noo quurtaan waxaanu leenahay maalin guuleed markii uu soo degay 4 masalaan weydiiyey waxaan idhi madaxweyne maxaa leedahay baa leedahay nimanka abtiyaal bay yihiin baan idhi nin kastoo maxamuud saleebaan ku farxa waa kaga ducaysanaya kow waxaan guule haddaa ku guulaysato dimuqraadiyadda halkeedii ma ka sii wadaysaa haabuy lacagtii ma soo celinaysaa haabuy qoqob baanu ku jirnaa intaasoo qalwayar baanu ku jirnaaye ma naga fidaynaysaa ma naga saaraysaa haabuy laamiga ma ka daadijanaysaado meelaha boorka weyn gobollada jira ilaa la faqarayo إلى السناك إلى حقك مو دا دجنيسا هابوي دولة في درالك قودان بانو كنهاي حق يجي من نوغد دونيسا بان هابوي قوليسو بان قوليسو هذا وحان ليه أنا أودي دغاميدada reeru soo qabsadeen yaan idin la ekaane siyaasiyiinta weyn iyo generaalada ugu tiri guuleed waxaan leeyahay guuleed horta guriga uu ka soo jeedo waa gurigii reer nuugeedi wey Bashiir Nuurgeedina waa adeerkiis Bashiir Nuurgeedina waa awowihii Nuurgeedina waa awowihii waxa kaloo jira Ahmed Abdi Ali Qarjab generaal ninka la yiraahdo qalyare oo bilad geesi qaatay oo khaatuma ka bara oo hadeer sareeyo guuta lagu siiyay isagana laba walaalaha kala dhalay ogaada ninka waxaan leeyahay rag badan baa kula sharaxan laakiin kursiga nugaal baa leh
ciise dhuux baa leh labada ilma maxamuud saleebaana cumar maxamuud waaba u saxiixay oo xaarin baa haddeer ku dhawaaqay cismaan maxamuudna eenow baa ku dhawaaqi doona ama ku dhawaaqay siciid cabdulaahi deenina waa nin goba oo talow waxbuu qabtayoo ciise dhuux buu ku simayaa ee meesha isku dhejin maayo xildhibaanada la soo xuli doono waxaan leeyahay kuwa wanaagsan oo khubro ah oo la mahadiyo oo hoggaan wanaagsan noo doorta allah idinka dhigo oo xaqa ku aadama annagu odayaashii cuqaasha aabbaashii waa laga qaado ismadii baa naga faramarooriyey ismada waxaanu leenahay haddaad naga qaadeen doorkayagii dad macquula oo hoggaan wanaagsan dooran kara soo xula intaasaan odhan lahaa guuleed guul 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 puntland guul soomaaliya guul khaatuma guul khaatuma guul khaatuma guul hiil iyo hoo iyo garab istaag iyo difaac waxayna ka rabtaa iyo maalgelin khaatumo halkaa aan ku sidno oo halkaa aan ku qaadno sidaani assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalgelinta bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib ah ama bilaa ah